الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد maanta waxaan duubi doonaa casharkeenii labaad aan kaga hadlaynay saxaafadda casharkaasoo inta badan aad kala socotaan bartan mediaha ku leenahay ama warbaahinta aad kala socotaan barbaar media iyo dhexnimo media sidoo kale waxaad kala socotaan bartan youtube ku leenahay Tudor media production oo toddobaadkii wax mar soo gala barnaamijkanu kaasoo aan ugu talagalay dhammaan inta afka Soomaaliya ku hadasha saxaafadda afka Soomaaliya ku hadasha inay ka faa'iideysto toddobaadkan waxaan ka hadli doonaa caqabadaha haysta saxaafadda maxay yihiin caqabadaha haysta saxaafadda qodobkaas waa muhiim run ahaantii caqabadaha haysta waxaan kusoo koobi doonaa way badan yihiin laakiin waxaan kusoo koobi doonaa 9 qodob baan dusha yar dul mari doonaa caqabadaha haysta saxaafadda qodobka koowaad haddaan dul istaagno waxaa ka mid ah aqoonta saxafiga ama waayo-aragnimada saxafiga oo ah aqoonta marka leenahay saxafiga aqoonta uu leeyahay warbaahinta ama mihnada saxaafadda oo ah mid aad u liidata aqoonta guud iyo tan gaarkaaba oo xirfad ahaantaba markaa noqdo qof aan waayo-aragnimo ahaan run ahaantii inta badanna way kala duwan yihiin qofka waayo-aragga ah ama senior journalism iyo qofka markaa cusub ee warbaahinteena inta badan Soomaalida afka Soomaaliya ku hadasha markaa run ahaantii waxa weeyaan aqoon guud oo baahsan baa jirta saxaafaddeena marka laga eegayo caqabadaha haysta qodobka labaad wuxuu noqonayaa aan kaga hadli doono toddobaadkan iskaashi la'aanta wariyeyaasha run ahaantii inta badan saxaafaddu waxaa dishay ama waxay ka mid tahay meelaha afka Soomaaliya laga hadlo ama warbaahinta afka Soomaaliya laga hadlo inay caqabad ka haysato dhinaca warbaahinta kuwaasoo inta badan aad arkaysid iyagoo is haysta ama iyagoo muxuu ahaye isku yar siya taas waxaan leenahay iskaashi la'aanta haysata wariyeyaasha ayaa waxaa ka mid tahay caqabad haysata wariyeyaasha ama warbaahinta ama mihnada saxaafadda markaas waxay ka mid tahay qodobka labaad aan maanta cashar kusoo qaadan doono iskaashi la'aanta oo ah qodobka aad u yahay muhiima waa leenahay saxaafadda markaas inay iskaashataan mid muhiim tahay qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa awoodda saxafiga awoodda saxafiga looga baahan waxa weeyaan waa inuu wax kasta awood u leeyahay ama wax kasta oo soo saarayo ama mihnadan uu saxaafadda u leeyahay inuu awood u leeyahay hadday noqoto aqoon ahaan hadday noqoto xirfad ahaan iyo hadday wax soo saar ahaan noqoto bulshada uu soo saarayaba runaantii waxa weeyaan inuu awood u leeyahay saxafigu ayaa mid muhiim ah oo lagu taxadiro uu saxafigu yahay qodobkeena afraad wuxuu noqonayaa ay toddobaadkan ka hadli doonaa caqabadaha haysta warbaahinta waa waxbarashada oo liidata aqoon yari marka la waxbarashada liidata runaantii saxaafadan maanta afka Soomaaliya ku hadasha oo inta badan aan research ku sameynay muddooyinka laga joogo 4 sano oo research ku sameynayaan uga dad badan buu qoreenba waxaa jirta mihnada dadkan saxaafadda waqtigan dambe marka leenahay caadi ahaanba 2007 iyo wixii ka dambeeyaba waxaad arkaysaa mihnadii saxaafadda oo sii liidata hadday noqoto aqoon ahaan iyo hadday noqoto si kaleba oo qofkii ay noqoto qof in qabiil lagu doorto oo noqoto saxaafaddii maanta qabiil ahaan runaantii inay isbedesho markaa in waxbarashadii liidata waxaa keenaysaa inta badan meelaha warbaahinada afka Soomaaliya ku hadla waxaa ka shaqeeya dad aan soo saari karin barnaamijyo dad muxuu ahaye aan translate ku samayn karin luqadaha kala duwan ama loo yaqaana yar tahay sidoo kale iyadoo ay liidato production ay soo saarayaan oo arkaysa TV kastaba inay same ka yihiin muxuu ahaye barnaamijyada soo saarayaan iyo waxay isleeyihiin ba si tahayba taas waxaad ka dareemaysaa in runaantii ay noqoto saxaafadda mid liidata oo qofkii saxafiga lagu qiimeynin aqoonta halkuu heerka taagan yahay oo runaantii inta badan aad arkaysid warbaahinteenu inta ugu yarba in jaamacad gaadhaa ay yar tahay ama ka baxdayba jaamacad xaqiiqdii sidoo kale qodobkeena shanaad wuxuu noqonaya toddobaadkan kaga hadli doono caqabadaha haysta saxaafadda in aan sharciga lagu dhaqmin runaantii marka leena sharciga lagu dhaqmo horta Soomaali marka leenahay meel kasta caqabad baa ku imanaya gobolada qaar waxaa ku imanaya saxafigii markuu eego barnaamij duubo ama uu ka diyaariyo qof in maxaanta reer noqonayso taasoo ay noqonayso in sharcigii u yaalay saxaafadda international lawgii in laga tago oo lagu dhaqmi waayo taasina waxay keenaysaa inay saxaafaddii ku keento gaab hoos u dhac ah oo runaantii qofkii aanu ka gudbi karin saxafiga ahi markuu sharciga aan aqoon qodobkan lixaad waxa weeyaan toddobaadkan kaga hadli doonaa waxa weeyaan caqabadaha haysta saxaafadda dhaqaale la'aan dhaqaale la'aan marka leenahay toddobaadka hore waan kaga soo hadalnay way ku jirtay runaantii saxaafadda marka leenahay saxaafadda dhaqaale lagama helo
laakiin waxaa laga helaa magaca famous person inaad noqoto weeyaan. Laakiin famous person saad ku noqonaysaa waxa weeyaan markaad aqoon ahaan dhisan tahay, marka runaantii waa aragnimo ahaan, iyo markaad muhiimadan ay tahay hal abuurnimo adiga ku jirta oo aan runaantii aan iska soo gelin. Inta badan waxaa ku badan bulshadeena wax xiise. Runaantii inaanay noqon xiise laakiin noqoto wax ilaahay kugu dhaliyay oo hibo ilaahay ku siiyey ah saxaafaddu. Markaasaad ka gaadhaysaa oo runaantii si dadkii hore inaga horreeyayba ama dadkii waqtiga wariyaashii hore xaqiiqdii asaaqay soo mareen maanta runaantii ay taagantay. Runaantii Soomaalidana aad laba u qaybsamaan. Runaantii waxa weeye waa qof aan cilmigii aqooneed u lahayn saxaafadda oo runaantii dhinacii qaldanaan ka faa'iidaystay iyo qofkii aqoonta u lahaa oo runaantii nasiib u waayay inuu kaga faa'iidaysto warbaahinta oo runaantii bulshada u faa'iideeyo. Sidoo runaantii aan arkayna ku saabsan caqabadaha haysta saxaafadda runaantii anshaxa. Runaantii marka anshaxa leenahay etiquette journalism-ku leeyahay runaantii waa mid shay cajiiba oo kala saaraya qof kastaaba environment kastaba deegaan kasta iyo gobol kasta iyo dal kastaba uu leeyahay dhaqan gooniya. Dhaqanka hadii aad ku xisaabtami weydo ama aad ku dhaqmi weydo runaantii taas waxay keenaysaa caqabad aad iyo aad u weyn. Marka anshax marka leenahay baahinteena ama baahinta marka TV-yada iyo waxaan eegno iyo dhinaca qoraalka marka eegno iyo wixii lamid ah runaantii inta badan ma ilaaliyaan anshaxa laakiin runaantii waxay noqotaa wax qofka bulshada lagu taagayo runaantii si aan aqoon ahaan runaantii loo ogeyn. Runaantii spelling-ka marka laga hadlayo ama af Soomaaliga qoraalka laga eegayna runaantii dadku ay dambena aad bay u liitaan warbaahinta dambe. Runaantii marka waxaan leenahay in qofka saxaafiga ah oo muhiimada saxaafadda baranaya inuu aqoon ahaan ka dhismaa waxa weeyaan mid aad iyo aad u fiican. Sidoo kalena waxa weeyaan inuu anshaxii saxaafadda iyo international law-giina u bartaa waxa weeyaan mid fiican. Sidoo kale qodobka 8aad ee toddobaadka kaga hadli doona caqabadaha haysta saxaafadda waxaa ka mid ah dadka caanka ah oo saameyn ku leh saxaafadda. Runaantii waxa weeyaan inta markay ka hadlayno muhiimada saxaafaddu waxaa caqabad weyn ku ah dadka caanka ah oo runaantii saxaafaddii markay tahay mihnad runaantii u adeegsanaya dadkii lacag siiyaan warbaahintii dabeedna warbaahintiina waxay doonaan qofkaas ka hadlo dabeedna ay u sii dayso dabeedna way noqotay warbaahintii meel laisku weydaarsado cayda iyo muxuu ahaaye wax kastaba. Taas waxay keentay runaantii in maanta dadkii caanka ah ku yeesho taana waxaan uga digaynaa dhammaan warbaahinada runaantii in qofna qof runaantii aanay noqon inuu muxuu ahaaye u dilaal ama lacag siiyo oo qof iska caayo laakiin inaynu ku dhaqanno xeerarkii saxaafadda iyo dhaqan ahaanba oo dadkeena iyo bulshadeena lugoyn oo shacabkii iyo dhalinyartii iyo dumarkii runaantii aynu uga faa'iideyno runaantii hadday noqoto aqoon ahaan education ahaan diin ahaan iyo runaantii entertainment bulshadeena la tiriyo wax kasta lagu siiyo. Maanta warbaahinta markay ka leenahayna saddex waa laga faa'iideysan karaa in diinta lagu fidiyo runaantii bulshada xadiisyadii iyo lagu fidiyo sidoo kalena bulshada wax lagu baro aqoonta lagu baro iyo sidoo kale in bulshadii muxuu ahaaye looga faa'iideeyo waxyaabo ay anfacaya oo runaantii sidoo kalena in dee muxuu ahaaye wixii caalamka ka socda ay muxuu ahaaye la socdaan. Taasuna waxay keenaysaa in runaantii warbaahintii qofka aqoon u leh oo meesha ka baxo. Qodobka 9aad ee barnaamijkeena ay kaga hadlayaan toddobaadkan waxa weeyaan maamulada xarumaha warbaahinta oo aan aqoon u lahayn mihnada saxaafadda. Markay leenahay mihnada saxaafadda mihnada saxaafaddu waa shay runaantii bulshadeenu si qaldan u adeegsato laakiin runaantii markaan leenahay mihnada saxaafaddu waxa weeyaan way ka ballaaran tahay runaantii sida loo haysto iyo sida loo aaminsan yahay. Runaantii dadkeena inta badanna warbaahinta iska lehna waxa weeyaan waxay u adeegsadaan si qaldan bay u adeegsadaan kuwaasoo inta badan mostlyba markaan eegayno ama aan qiimeynaynaba aan ku aragno waxa weeyaan in ay u arkaan oo warbaahinada afka Soomaaliya ku hadla ha noqoto TV-yada ha noqoto warbaahinada qoraalka social media-haba ay iska leeyihiin dad u furtay ganacsi ahaan laakiin aan u furan oo ah dad aqoon u leh mihnadan dad dabeedna ay noqotay qofka u shaqaynaya qof wuxuu isugu dhigtay ama xeer uu doonayo muxuu ku shaqeeyo laakiin wax ka duwan aan ku shaqaynin. Taasna waxay keenaysaa in saxaafigii uu ka gudbo xeerkii ama mihnadii saxaafadda oo runaantii xeerkii anshaxii marka ka gudubtid runaantii waad ku xadgudubtay xeerkii saxaafadda. Markaa runaantii toddobaadkan waxaan ku dayn doonaa 9 qodob aynu kaga hadlay caqabadaha haysta saxaafadda afka Soomaaliya ku hadasha markay leenahay.
run ahaantii waxa weeye way ka badnaayeen caqabadaha markaan leenahay laakiin run ahaantii waxa weeyaan waan soo gabay waan soo yaraynay oo intaas ayaan kasoo qaadanay Een, waxaan leenahay dhammaan bulshada afka soomaaliya ku hadasha ama saxaafiyiinta ku xidhnaada markasta bartan youtube-ka ku leenahay tugdheer media production oo toddobaad kasta aad ka daawan kartaan cashar oo run ahaantii aan ugu talagalnay intay barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmi doono waa anagoo inay kaga teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu